بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكينا maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa barnaamij ku saabsan arrimaha Soomaalida ee dalkan Ireland. Halkan waxayna la fadhiyaa gudoomiyaha Soomaalida ee dalkan Ireland mudane Axmed Gadaf Lugunaanayso. Axmed soo dhaw barnaamijka aynu kaga hadlaynaa arrimaha qoyska iyo bulshada Soomaalida ee halkan degan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gudoomiye maadaama aad tahay gudoomiyaha Soomaalida ee dalkan Ireland waxaan wax ka weydiin lahayn bal inaad nooga waranto xaaladda guud ee dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Ireland. الحمد لله رب العالمين. والله Soomaaliya amba dadka Soomaalida ee ku nool Ireland waxay wax la qabaan wadamada Yurubada kale inkastoo aad moodo wadanka Ireland inuu wadan degan yahay oo looga hadlo afka Ingiriisiga sida Mareykanka sida Ingiriiska marka aad bay dadkan u horumareen waana wadan yar Soomaalidana way ka faa'iideysataa inta karaankeeda. Okay adiga shakhsiyan maad gudoomiyahan maxaad inta badan aad qabataa oo aad Soomaalida u fududeysaa? Soomaalida waxyaabo badan baa u fududeynaa waxaa kamid ah dadka sidhiibayaasha waxaan ka saacidnaa markay isdiimaan foomamka waan u buuxinaa qofka u baahan dalbashada medical card waan ka saacidnaa qofka travel document u baahan waan ka saacidnaa qofka talo u baahan waan ka saacidnaa qofka warqado looga baahdo ama eerta dhibka gashana waan ka saacidnaa qofka citizenshipka dalbanaya amba naturalizationka dhalashada wadanka Irish waan ka saacidnaa warqado waan qornaa marka ay rabaanna waan u saxiixnaa reference ahaan oo dad yaqaan ahaan anaga aan kan dhignaa as a community. Okay maxaad ku qiyaas lahayd dadka imka Soomaalida ah ee wadankani degan? runtii waa mid la isku haysto ilaan tira sax ah weli lama sameeyay tira koob oo sax ah lama sameyn laakiin anagu haddaan nahay ka jaalid ahaan waxaan ku qiyaasaynaa ilaa 3,000 oo qofood inay degan tahay wadanka Ireland guud ahaan. ma xagga magaaladan Dublin caasimada oo dalka Ireland baad degan tahay numberka aad ku qiyaas lahayd dadka degan Dublin waxaan ku qiyaasaa Dublin ahaan ilaa iyo 2,000 baan ku qiyaasaynaa. Okay dadka Soomaalida ay halkan degan intooda badan waxay yimaadeen baa la yiri 2,000 wixii ka dambeeyay sidoo yihiin dadka wala qabsadeen ma dhex galeen bulshada maxay roolkay ku leeyihiin bulshada dadka Irishka? Soomaalidu runtaa way 2003 wixii ka dambeeyay ay wadankan aad u soo galeen xitaa aniga naftiga kula hadlaayo waxaan imid 2003 waxa waqtigaas inta ka dambeysay ayaa wadanka aad loo soo galay integrationka Soomaalida ama dhaxgalku waa ku yiriin Soomaalida runtii waxay dhahaan dad kala cunsuriyeen laakiin anaga ay isku kooban sababta keenaysana waa waxyaabo badan dhaqan ahaan diin ahaan baa keenayso sida wadanka qolooyinka Nigerianka Afrikaanka kale oo masiixiyiinta ah ama Christianka ah horay u dhaxgalaan wadanka anaga waxa xoolo jiro gaab baa jiro oo dhaxgalay oo ah dhinaca diintii iyo Soomaalidu ayaga midib taqaan amba is afgaranayso meelaha aan hadda leenahay Soomaalida ayaga isugu yimaado ayaga ku sheekaysto meelaha kale ma tagno. Okay inagoo barnaamijyadeena sii wadan doono oo insha Allah kolba barnaamij aynu aad marti aad nooga hadlayso mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa in aad soo yar koobto xagga barnaamij dhalinyarta ku saabsan ayaad wadaa oo ku saabsan sportiga waa runtii waa dhiirigelin weyn in dhalinyartu sportiga aad ku dhiirigeliso marka adiga bal looga waran sportiga iyo hawlaha dhalinyarta waddanka. Sportiga waxaan soo bilownay ilaa 2010 ayaan xoogga saarnay ilaa haddana waa wadnaa sanad kasta waxaan qabanaa 2 koob ilaa 3 koob ayaan qabanaa ilaa waxaan ka soo qayb gasho 10 kooxood ama 8 kooxood baan ka soo qayb gasho hadda waxaan qabanaynaa markaan koobabka wax la yiraahdo oo ay ka soo qayb galayaan 4 koox oo hore koobka u qaaday 3 qaaday iyo hal aan ku sharafnay 3 qaaday oo ah Dublin 8 kooxdeeda iyo Branchtown iyo Dundalk iyo kooxda aan ku sharafnay oo taala ah waxaana la qaban doonaa maalinta soo socoto Khamiis soo socoto ay bisha tahay 1 okay marka xagee lagu qabanayaa say dadka bulshada ku nool magaalada Dublin ay uga qayb galaan ama ay barnaamijyada waxaa lagu qabanayaa Inchicore Community Sports Center oo ku yaala Dublin 8 waxaanu bilaabmaa 2 duhurnimo wuxuuna ku egyahay 6 galabnimo. maxaad kula talin lahayd dhalinyarta aan soo gaarin goobaha laftigeega ama guud ahaanba Ireland muxuu ahaa kooxaha ka jira koox badan baa ka jira ama kuwa aan ciyaarin laftigooda si isku xiraysaan dadkaas oo
waxaan wadnaa hadda si mataqaana dhalinyarada ay usoo kobcaan baa wadnaa waxaana ilaahay kheyr ka siiyey cabdishakuur maxamed gaarisa ayaa managerka ah kooxo yareed baan bilownay oo 6 jir ilaa iyo 11 jir ayaan wadnaa tababar baan siinaa maalin kasta oo sabti ah 3 galabnimo ilaa 5 galabnimo waxaan ku siinaa Inshikor Community Sport Center oo naga saaciday oo noo qafifisay sicirka ama kirada meesha marka waxaan rajeynaynaa waxaan soo bilownay September baan soo bilownay ilaa hadda waxaan rajeynaynaa September ilaa hadda ma fogo waa 6 bilood ilaa 7 bilood marka waxaan filaynaa haddii 2 sano la gaaro inay ilmo fiican soo bixi doonaan tan kale faa'iido ay leedahay sportiga ciyaaraan kaliya ayaga isbaranayo okay anaga naftigan oo dadku waaweyn dhalinyarada si fiican baan u baranaynaa waa isbaranaynaa aabood baan baranaynaa hooyooyinkaan baranaynaa ehelkaan baranaynaa waxgal baan meeshaas ka soo bixi doonaa hadduu ala yidhaahdo okay axmed aad baad mahadsantahay barnaamij lamida intaan ku kulmi doono oo aan jecelahay weliba barnaamijyada sportiga aan si taxaana ah usii dayn doono waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.